wasiirka difaaca Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya halkaas uu kulan kula qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimo waaxidyada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waqtiga ku sugnaa wasaaradda difaaca. Wasiirka ayaa waxa uu kala hadlay agaasimayaasha uu la kulmay oo ku jira agaasimaha guud in la dardargeliyo shaqada ka socotay wasaaradda gaashaandhigga isaga oo xusay in shaqadu ay ku habboon tahay in si wadajir ah loo guto. wasiirka ayaa intaa kadib waxa uu booqday dhammaan xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga si uu ugu kurgalo howlaha shaqo ee halkaa ka socda. markii uu soo dhammaaday kormeerka uu ku sameynayay wasaaradda iyo kulanka uu la qaatay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada waxaa warbaahinta qaranka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xasan siciid samatar isaga oo ka warbixiyey waxyaabihii la isku soo qaaday intuu uu kulanku socday. bismillahi rahmaani rahiim. waxaan maanta wasaaradda gaashaandhigga soo booqday oo kormeer u yimid wasiirka cusub Cabduqaadir Maxamed Nuur. wuxuu la shiray saraakiisha taliska, wuxuu la shiray agaasimayaasha guud bismillahi rahmaani rahiim. waxaan maanta wasaaradda gaashaandhigga noogu soo booqday oo kormeer noogu yimid wasiirka cusub mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur. wasiirka wuxuu la shiray uuna kulan dheer la qaatay taliska saraakiisha taliska ugu sarreeyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo agaasimayaasha waaxyada wasaaradda. kadibna wuxuu sameeyey kormeer xafiisyada dhan uu ku wareegay iyo qaybaha dhan oo tababarada lagu qaato iyo waxa dhan oo wasaaradda ka kooban tahay ayuu ku soo indhaynayay. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxa uu horay u sheegay in uu sii laba jibaari doono shaqada ka socota wasaaradda gaashaandhigga isaga oo dhanka kala xusay inuu kaalin weyn ka qaadan doono dib u dhiska ku socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.